حتى هدي برايم منستر حكومة نسين لها أحمد مدوبة وحكين لها من وحجة السجع أما علم هذا أما يولهان لكن قوس كيسة من دافت النقل هاي وأنا قاعدة أمسية ما كبقوا ما كحشودوا ما كيحيحوا دتكون إنه وعيين تاسنا في مكة كنا قلنا هاي جوبلاند يكون هذا دتك إذا جسنا هي وحقولات لها قول كاتان قول كوسون نقول هاي جوبلاند أنا وحنا لها كومة وحول نقول أري أحمد مدوبة ميل وحريسن أون هالي كرين هكو هالين جوبلاند كا أو دجالما أو بنام بحيال دبد يجودها بكسمية أو نكاس أفر سنة أو دنبيان لا أقولان حدي لا أقولنا دبتوين باكو عيسى وأوحن شيء هاي نكان لا هاي حدو هلها حتى ينسو كلها وبربرين جوبلاند النوع نيك أشقيا ذلك إيه دتك إنه بربريو ربا سومالنا إنه بربريو ربا مركا أرين سهلا معها أرين تانكها الله هيو وأرين حوالنا الله هي وأرين عد جلو قبلين لكي جعل نكي نعب هذا الكاسو معها هذا العادة أو أن بينك شيء هيو نول بنا وأوجه السياسة حمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسر دوادا ورئيسي أن لي النوع عبد الحاشي محمود أو يسوقها قوية الصوماليات وأرمها الصومالية سيادة وقلنا دولارات وحنا كوري صدقنا سيدا إلا سعنبا وحادا لدورت حكومة العصب أو هجاميني مدحوينها ودك الصومالية مدني حسن الشيخ محمود أرمها يو وحكوري صدقنا والسيدا مركزي حكومة الرجينية أي نقود دونتو والبكرة كسر دو في الميديا برامج كنا عن قوة سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومضى صوماليا البرنامج كان في السنة كلكم وسلامتين وحين لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان وحود وصع على برنامج الهراء وهم قاعد الرأي رونك شاك. وهاج سيدا الرسول عن حسن الشيخ وحال لقى رجينيا بريتو لا ورئيس الوزراء وصومك عابو صوماليا waxay ku qaybsataa muddo hadda 2000 laga soo bilaabay ilaa hadda waxay ku qaybsadaan 4.5 madaxweynihii waa haynaa oo dabcan xasan sheekh maxamuud waa la yaqaan cid uu ka soo jeedo marka uu noqon kara ra'iisul wasaaruhu waa su'aal aad u fiican waa saad u sheegtay Soomaaliya 4.5 bay wax ku qaybsanaysay xeer hoosaadday mees la dhigtay ama sax ha noqdo ama khalad ha noqdo labada qole ee hawiyaha iyo daaroodka waxaa loo qodeeyey madaxweyne iyo prime minister qola hadday prime minister hesho qolada kale madaxweyne qola hadday madaxweyne hesho qolada kale prime minister marka kaalintii madaxweynaha way baxday waxaa dhiman kaalintii prime ministerka sanadkan waxaa u dhuundulolay ama dadku lahaayeen waxaa iskale kablal ah mar haddii deeni iyo axmed madoobe ay ugu shubeen xasan sheekh kursigaasu dhinacaas kablalax inuu maraa loo arkay weliba daraska sida arrimuhu sheegahayaan oo ila xoogaa sheegahayaan beesha hawiye kulligood waxay isku raaceen kursigaas sanadkan in la siiyo beesha kuumade oon weligood prime minister arkin madaxweynena arkin waa gartay yaa ku heshiiyey markaa in beesha kuumade la siiyo qodayntu waxay ahayd marba kursigan haddiiba kablalax meesha uu ka muuqdo waa kablalaxa soo haray waa uun hartigii iyo ogaadeen labada ninna way ka falgaleen sidii xasan sheekh kursigaas ku heli lahaa marka beelweynta hawiye waxay xoogga saartay in sanadkan la siiyo oo lagu sharfo niman aan weligood kursigaas u taabanin oo ah beesha kuumada
wagaag bal markaynu beesha hadda aada magacooday ra-iisul wasaaraha waxa weeye laga rajeynayo inay ula ka yimaado haddana way sii kala yihiinoo waxaan la soconnay in hogaamiye maamul goboleedada sida puntland siciidani iyo jubbaland ay aada ugu ololeynayeen xasan sheekh isla haatana aada waxa weye halkaas inay kasoo baxaan la rajeynayo sida haddaba aynu la soconno axmed maadaama waxa weeye beesha hadda aada magacawdo uu isagoo kasoo jeedo yuu wadaa shaksiyan haddii aad ii magacawdo waa su-aal fiican waxaa meesha ku jirta markii xasan sheekh axmed madoobe iyo deeni kulmeen waxay ku heshiiyeen nimay isla og yihiin inay meesha keenaan arrinta xooggeedana oo dabada hawiye ka riixahayana kumadahu la rabay balse axmed arrintaas wuu diiday waxaa caddiin u ah axmed wuxuu la kulmay xasan sheekh say wararka xoogaalka noo sheegayaan 3 shay buu ka codskaday xasan sheekh kow saan horeyba u sheegay ciidanka gada jooga in laga qaado xasan kelimadaas wuu oggolaaday qodobka labaad in loogu daro 4 sano oo kale arrintaas xasan sheekh wuu ka gows qabsaday maya iyo haa ma dhihin laakiin 4 maalmood ka bacdige war buu sii daayay xasan sheekh uu leeyahay maamulkii waqtigiisu dhammaado ha ogaadeen 5 gobol maamulkaas waa la bedelahayaa doorashaha dhacaysa taas waxay ku tusaysaa hadalkaas inuu dhab yahay oo axmed madoobe yidhi 4 sano ha laygu daro qodobka saddexaad wuxuu ula tegey axmed madoobe xasan sheekh wuxuu ula tegay madaxweynaha inaan kursigaa prime ministerka ah kuumado la siino oo harti la siiyo khaasatan deeni la siiyo waa gartay sababtu maxay tahay sababtu waxaa waaye axmed wuxuu raadinhayaa nin ku ilaaliya 4 sano oo dambe kursiga jubbaland si u haysto oo difaaca oo prime minister ah oo asaga iyo prime minister iskaashadaan oo ay xasan ula tagaan markastaba kursigan axmed madoobe 4 sano waa inuu ku noqdo halkaasay arrintu ka socotaa mar labaadka axmed madoobe ma raba nin kuumado ah oo asaga ka sarreeya ama magac yeesha ama kursi xil qabsta oo dowladeed oon asaga ka ahayn waa ecocentrica wax walba asaga isu raba waatay marka waxaad leedahay hartiga waxa uu raadinayaa si uu kursiga ugu ilaashado waa gartay halkeeba marka waxa weeye waxaynu baryahan maqlaynaa in waxa weeye galmudug ay aada waxa weye isugu dhow yihiin sidee baad u malaynaysaa inay isugu soo dhawaadeen axmed iyo maamulka galmudug arrintaas waa su-aal meesha ku jirta markuu xasan sheekh deeni ka gows qabsaday axmed madoobe garantii 4 sano ah waa waayey wax ku garab istaagana waa la'yahay kaartadii buu bedelay kolka kaartadii wuxuu u bedelay ciid oo galmudug ah oo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ah inuu intuu gacanta qabto xasan sheekh u geeyo uu dhaho kan prime minister ka dhig asagoo doonahaya inuu dhaho mareexaanoo abaal baa ini galay oo prime minister baa ini siiyey inunkuna 4 sano ii oggolaada taasaa meesha keentay arrintaa mareexaan waa ka biyo diiday war ma rabno prime minister war ma rabno minister war ninkanna dhaafi war 12 sano meesha dadka baabi'inhayana dhaafay taagan yihiin mareexaan marka reerka aad sheegtay waxa weeye in xukunka waxa weeye uu labadii sano way dhammaatay kulle waxaan filayaa wax hadda wax ka hadlaya male xukuumaddii marka ku haysata madaxweyne farmaajo uu maamulayeyna hadda meesha waa ka baxday soo lamana karood axmed waxa uu yahay madaxweynaha jubbaland wuxuu hadduu sheekadu meel marta kama soo noqoto axmed dhibaato weyn bay asagii dowladdii hore farmaajo isu geysteen wuxuu samaynayoo dhanna way u jeedeen tii baana dagaal keentay geeduu dabada la galay waxbuu isku saydhsaydhay dowladdii way dhaqaaqi weyday asna wuu dhaqaaqi waayey jubbalandina saase waxay ku noqotay isolated adduunka iyo dowladdaba ku noqotay magacii waa iska wataa
laakiin niyad sami iyo kalsooni shacabka jubbaland uu ka haysa absolutan ma jirto. waa tahay inagoo soo gabagabaynayna maxaad odhan lahayd oo talooyina oo aad siin lahayd madaxweynaha hadda xasan sheekh ra-iisul wasaarahaas qof neecay inuu noqdo? mar horaan shuruudaha soo qoray waan sheegay qof bolisiga adduunka wax ka yaqaana, xiriirka adduunka wax ka yaqaana, danaha soomaaliyeed yaqaana, danaha nalaga leeyahay yaqaana, dowladaha wax noo tari kara yaqaana, dowladaha aan wax noo tari karin yaqaana, daacad dalkan u ah baa loo baahan yahay oo madaxweynaha garab qabta. waa tahay ugu dambeyn idinku galaangal ma samayseen maadaama aad idinku rajaynaysaan in ra-iisul wasaaraha waxa weeye xukuumadda uu ka soo baxo, wax galaangala ma yeelateen mise waad iska rabtaan? waa la sameeyey, shirar badan baa xamar ka dhacay oo xukuumaduhu sameeyey. arrimahaas waxaa waaye dhibaatada saddexda nin shuruudo isla galgaleen gooni u ah iyaga, shuruudihii baa hortaagan. waxaa weeye hadalkii shacabweynaha maanta lama maqlahayo oo duruufo jirta awgeed iyo xaaladda soomaaliya waqtigan aan ku jiro. dacwooyinku way jiraan, waa u sheegnay xasan sheekh, waa u sheegnay soomaali oo dhan kursigan sanadka inaan leenahay, laakiin shuruudo saddexdooda isla og yihiin, waana la mari kari layahay shuruudahaas. waagaag ugu dambaystii sidaan la soconno ayaamahan waraysi aad waxa uu u socday ee xasaasiya oo dhanka amniga ku saabsan maadaama tahay nin siyaasiyo arrimaha soomaaliya aada ugu dhundaloola cabdi xaashiyo siaad u aragtay waraysyaduu faad bixin? wallaahi fahad aqoon hore uma lahayn, laakiin markaan hadda si dhaba u fiiriyey waraysiyaashiisa wuxuu ila ekaaday nin daacad ah oo waddani ah oo laga gardaraaday sida iiga muuqata. sababtoo ah shalay u dambaysay tuur yare oo nabad sugidda ahaan jiray hadallada ka soo baxay caadi ma aha. wuxuu yidhi naag jarmalaha soomaaliya joogtay oo dadka miinooyinka beri jirtay oo siyaasadda soomaaliya dibadda u bixin jirtay, naagtii iyo wixii la socdayba fahad yaasiin baa cayriyey, dad badan buu cayriyey oo farafaraynhayay soomaaliya. halkaa waxaa iga soo baxday ninkaasu inuu si dhab a dalka ugu shaqaynhayay. waa gartay ugu dambaystii maxaad dadka ku daawanaya aada u jeedin lahayd taladoodii timi? dadkay daawaha intaana gelin waxaan dhihi lahaa aniga xasan sheekh halku dheg buu sameeyey aada u macaan oo ah soomaaloo heshiisa adduunkana heshiis la ah. si fiican. soomaali adduunka heshiis way la qaadan kartaa, laakiin soomaaloo heshiisa xasan sheekh axmed madoobe suu ula heshiin. hadduu dhaxmadooba la heshiin waa inuu amarka axmed madoobe qaata, si kale ay ku heshiin karayaan ma jirto. waa gartay. taas waa qodobka labaadeen oo qabe waxaa waaye xataa haddii prime ministerka xukuumadana siin lahaa axmed madoobe wuxuu keeni lahaa nin ugu xiga asaga, ama cilmi ha lahaada ama yuu lahaanin, laakiin qoyskiisa mandhaaftay noqon lahayd. waana qaacido uu aaminsan yahay, ma ka boqo, ma ka xishoodo, ma ka yaxyaxo, dadkao dhanna waa og yihiin. taasna fidmo kaley ku noqon lahayd jubbaland iyo kumadaba. dadka dhegaysanaya waxaan kula talin lahaa kolka haddaan qodobka u soo noqdo reer jubbaland, anigu waxaan dhihi lahaa kuumada wuxuu noqday ari axmed madoobe meel ugu xaraysan oon hadli karin. ha ku hadlayna jubbaland, kaca oo dagaalama oo banaanbaxyaal dibadda iyo gudahaba ka sameeya oo ninkaas 4 sano oo dambe yaan loo ogolaan. haddii loo ogolaadana dhibaato weyn baa ku dhacaysa. waa waxaan sheegahaya ninkaan leeyahay hadduu heli lahaa xataa xigtadiisu keeni lahaa waa burburin jubbaland noocaas ninka u shaqeeya dalka iyo dadkaba inuu burburiyuu rabaa, soomaalina inuu burburiyuu rabaa. marka arrin sahlan ma aha arrintaan ka hadlahayo, waa arrin aan xoogaan u nahay, waa arrin cad oon geed loogu gabanaynin. ninkii jecel iyo ninkii necabba hadalkaasu ma aha hadal caadi ah oo aan been ka sheegahayo, nin walbana waa ogyahay oo siyaasi ah. waagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdi xaashi maxamuud. waagaag cabdi xaashi ayuu ahaa arrimaha soomaaliya aan ka wareysanaynay.
intaas ayaanan barnaamijkeennii kusoo gabagabaynaynaa intaynu mid lamid ah ku kulmi doonana waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo